السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنتي نسخة قارقة ملك تشوفون صورة وذا جنك محاولة سبسكرايب لايك وشير أصحاب صارة عشان أنتي الناس وعليك صار سنة علمت برشادة قناع سجا هي حساباتك هي نبلابينا 10 كان سجا يحكوا سبسنية هاي وأمور لص ولا كل سنة 10 كنا وراء introduction to the business and accounting سيدا وقال 10 كهورة عندنا يوتيوب كان نقلنا محاولتي نحفلين رديف ربنا كفاية 10 كنا 10 كاس يكون دبي حاجة طبعا إنه نقول 10 كني 10 كانوا سين نوجنا هي بوحكوا سبسنية هاي برشادة علمية قناع سجا حسابات كسيدا وقال وحفي عنه قف كونسب كقاطو أو مارتي مدامه والدنيا دي أنت وتشوف كل بقى ganacsi iyo hawlihiis iyo maaliyad iyo noloshiisa standard life-kiisa kor marba uu qaado ay tahay sidaa awgeed waxaynu 10keena ma guda gali doonaa subscribe like iyo comment ugu daaqa channelka kuna soo dhawaada 10keenii oo halkii inagu soo bilaawma asxaabta qaariga 10keena halkan ayuu inagu bilaabi doonaa professionals of accounting shaqooyinka ama careers ama occupations xirfadaha dadka accounts ka barta ay ku shaqeeyaan xirfadahaas waxaynu kala qaadi doonaa ama xirfada ganacsiga ama accounting ama especially accounting man ka hadlaynaa profession of accounting ama yani occupationka ama xirfada qofka accounts ka barta oo ku shaqeeya laba inta badan baa accounts ka qaybihiisa ama xisaabaadka waxa la yiraahdaa la taxalluqa ay dadka ku shaqeeya ay noqdaan ay kala baxaan labada mid waxa la yiraahdaa private accounting midna public accounting hebel wuxuu ka shaqeeyaa private accounting hebel wuxuu ka shaqeeyaa public accounting haddii labadeenna aynu kala qeexno aynu kala qaadno labada accountant is employed by a business firm or a not for profit organization are said to be engaged in a private accounting waxaa la odhan karaa buu yidhi xisaabiyeyaasha ku guda jira ama ka shaqeynaya business firms shirkadaha ganacsiga gaar ahaan oo kale shirkadaha dadka iska leeyihiin gaarka ama not for profit organizationska kuwa aan faa'iido doonka ahayn ururada ah kuwaas waxaan ku guda jiraan ama way ka shaqeynayaan ku taxalluqaan inta badan bay ka shaqeynayaan private accounting ay ku shaqeynayaan waa qof shirkad uu shaqeynaya shirkada uu shaqeynaya private hawlaheeda gaarka ay wadata business firm ay u shaqeynaya shirkad ganacsi kaas ayaa lahada private accounting accountants and their staff who provide service on fee basis are said to be employed in public accounting kuwan dadka ujirada ama mashaqada fee waxa laga jiro ama mashaqada ka qaadaya inta badan bulshada u adeegaya serviceyada bixinaya gaar ahaan waxyaabaha sida dawladda oo kale ama waxla isbitaaladka ama xaban macaasi bulshadii u adeegaya kuwaas ayaa la oranayaa waa public accountants sidaa wadeed waxaan eegi doonaa 10keena aynu sii socon doonaa qaybtan aan filayn aad iyo aad loo xiiseynayo ay tahay general accepted accounting principles gap haddaad maqasho weligaa kelmadda gap waxay u taagan tahay generally accepted accounting principles qawaaniinta la isla qaatay dhanka xisaabaadka ee adduunyada generally si hool ay u qaadatay ayaa loo qaatay kelmaddan iyada gap sidaa wadeed haddii ay kugu timaado abbreviation ahaan weeran waxay u gaaban tahay gap waxay tahay generally accepted accounting principles qawaaniinta loo dejiyay shuruucda loo dejiyay si adduunyada isla qaadato accountska taas oo loo baahan dadku inay wada raacaan financial accounts follow generally accepted accounting principles gap in preparing reports waxaa tan la isla qaatay oo financial accounts dadka xisaabaadkii maaliyadda waxa ka shaqeeya ay u qaateen inay ku diyaariyaan reportyada yacni finance-ka xuseeya ama xisaabaadka iyo ganacsiga xuseeya. These reports allow investors and other stakeholders to compare one company to another. يعني nidaamka noocani ama reportyada noocan ee lagu diyaariyo gap waxay u sahlayaan ama u fududeynayaan qofkii maalgashadaha ama dadka kale ganacsiga ka qaybka ahaa ee stakeholders ama daneeyaasha ahaa waxay u sahlayaan gap u sahlayaan inay shirkadooda shirkad kale barbar dhigaan oo ay bal eegaan sidii u shaqeysiyo iyo qaabkeeda xisaabeed qaabku u dhigan yahay taasuna waxay u sahlaysaa in bal faa'iidada iyo profitability-ga iyo maaragtay khasaaraha uu taagan yahay iyo ganacsiga siduu u socdo uu halba ka qiyaas qaato. Accounting equation haddii aad weligaa maqato accounting equation waa isla xisaabeed weeyaan oo accountska lagu base gareeyay ganacsiga aad aragtay wuxuu ka kooban yahay ama uu ku yimaada laba ur ee hantida aad haysataa laba bay ku imanaysaa liabilities and owners equity haddaynu qaabkan eegno qaybtan waxa weeye left side
qaybtana waxa weeye right side. qaybta right side-ka waa assetska, qaybta left side-ka waa assetska, qaybta right side-kuna waa liabilitieska iyo owners equity-ga. haddaynu assetska eegno waa hantida shirkadda aad leedahay. The resource owned by business ayaa la yihahdaa oo shirkadda ganacsi ay iska leedahay. hadday ahaan lahaydeen furnitureski, hadday ahaan lahaydeen lacagteedii, hadday ahaan lahaydeen dhismayaashii, hadday ahaan lahaydeen supplieski, waxaas oo dhan ayaa la yihahdaa hantida shirkadda. Liabilities ayaynu baleegi doonaa iyadana qeexitaankeedu wuxuu yahay the rights of the creditors which represent debt on your business ayaa la yihahdaa. waa xuquuqaha ay kugu leeyihiin dadka deynta aad kasoo qaadato. ganacsigaaga lama buuko imanaya. haddaad 100,000 maanta aad ganacsi ku maalgashato, 100,000 wuxuu kusoo geliyay inaad wax soo deensatay 50 ka mid ah, iyo 50 ka mid ah adigu owners equity-ga hanti aad iska leedahay ay tahay. haddaba qaybta lagu leeyahay adiga ee aad soo deensatay ayaa la yihahdaa maxay? debt. debt ayaa la yihahdaa, taasoo u taagan marka equation kan leegayo liabilities, deymo. haddaynu eegno owners equity-ga waa the rights of owners, xuquuqda iska leeyahay qofka ganacsada ah. taas ayaa la yihahdaa oo isaga iska leh, lacagtana maha looga dhinto ama isaguba meel kale ha ka keensadee. ganacsigaaguna labada qaab form ayuunba ku imanayaa. waxaad maqashay what's a business transaction? maxay tahay macaamil ganacsi muxuu yahay? A business transaction is an economic event or a condition that directly changes an entity's financial condition or directly affects its result of operations. wixii ganacsigaaga hanti ahaan bedelaya ayaa la yihahdaa transaction. transactionkani waa economic event weliban aanu ka hadlaynaa businesska. waayo wuxuu wax ku kordhinayaa financial entities financialkii ayuu wax ku kordhinaya, xaaladaada wax ku bedelaya, ama operationskaagii daily operationskaagii wax kusoo bedelaya. wax badan oo iska jiraan economic events way jiraan oo fara badan oo ganacsiga saameeya, laakiin runtii haddaad maqasho business transaction oo wax economic event iyo inta ugu fara badan leh. bal aynu soo qaadano transactionkan aynu markii hore sheegaynay equation-keena ku base garanaynay qaabka u dhiganay. equation-kan wuxuu ahaa asset-ku wuxuu la mid yahay liabilities plus owners equity. bal haddaba tan ayaynu ku qiimeynaynaa. A business transactions and the accounting equation ayaynu macaamilaad dhacay oo ganacsi iyo equation-keena ayaynu isku base garanaynaa. On November 1, 2005, Musa Ali begins a business that will known as Soyan ayuu bilaabay 2005 bishii November 1 ayuu Musa Ali wuxuu ku bilaabay ganacsi ayuu bilaabay ganacsiga wuxuu bixiyay Soyan. ganacsigiisa magac markuu bixiyay ganacsiga qaabkan ayuu dhacayaa. hadda halka ku aragto waxay u taagan tahay transaction-kii koowaad. Musa deposits $25,000 in a bank account in the name of Soyan. bank account magaciisa Soyan uu bixiyay ayuu dhigtay $25,000 isagoo maartay akoonka ku kaydsanaya. haddaynu eegno asset-keeni waa qaybta noocan cash ayaa runtiina ayaynu maanta asset-keeni uu yahay $25,000 owners equity-geena waa Musa Ali Capital raasamaal isagoo dhigtay oo maxay ah investment-keeni marka wuxuu noqonayaa $25,000 ayuu noqonayaa. B haddaynu eegno transaction-keeni labaad aynu eegno B wuxuu noqonayaa balance-geena marka hore $25,000 ayuu ahaa. imika maxaa dhacay? waxaanu iibsanay dhul ayaynu soo iibsanay. dhulka aynu soo iibsanay $20,000 ayuu nagu joogaa. $20,000 halkan sidaad ka aragto oo kuwan inoo soo kordhay. waxaynaga go-ay cash-keeni waxa ka go-ay $20,000 oo aynu siisanay maxaa dhul. balance-geeni waxa weeye waa 5,000. xaggana waxa weeye lacagtii raasamaalka ahayd investment-ka aynu dhiganay ayuunba balance-gii soo degtay. sida halkan hoose aad ka aragto balance 5,000 oo cash ah, 20,000 oo dhul ah iyo maxay Musa Ali Capital raasamaalkiisii iska lahaa $25,000 markii hore ku maalgashay shirkadda iyada ah ee Soyan. haddaynu eegno transactionka saddexaad during the month Soyan purchased supplies for $1,350 and agreed to buy the suppliers in the near future on account haddaad maqasho waa deyn weeyaan. deyntaasna waa la ballan qaaday, waa promissory note. iyada ayaa dib ayaa laga bixinayaa future-ka dambe. markaas Soyan wuxuu soo qaatay alaab qiimaheedu yahay $1,350 wuxuu kula heshiiyey supplierskii inuu mustaqbalka dhow bixin doono. imika waxaana soo galay inagu soo biray labadeena akoon ee aynu haysanay midna ahaa laanka iyo cashka. maxaa sheegay wixii hantida ahaa waxaa kusoo kordhay hanti kale imika layaa supplieska wuxuu noqonayaa $1,350 laakiin maxaa kordhay? deyn ayaa inoo kordhay. maxay deyntaasna waa ballanqaad dib laga bixin doono. raasamaalkeeni waa intii, laakiin deynteeni way kordhay waa plus waa adiga arkaya. maxaa kaloo ayna soo kordhay? hantideeni aynu haysanay shirkadda asset-ka u ahaana wuu kordhay. sidaad aragto waxaa inoo kordhay maxay $1,350. bal aynu eegno transactionka ku xiga wuxuu noqon doona transaction D ayaynu sameynaynaa. Soyan preferred service to customers in fees $7,500 and received in amount cash. waxaa imika lacag baana soo gashay $7,500. $7,500 waa lacagna soo gashay. cashkeeni kor buu kacay. markii hore $12,500 buu noqday. halkan raasamaalkiina wuu kordhay. xasan wuu kordhay.
كين وينو كردي محاي نو كردي مركا فيس يونت باينو كردي نقنية محاي تتوقن مركا رسمير كين دمان ولا بيس نكون يشم بقول أشين حتى إنه transaction كحيجا ونقنية إن transaction إي حتى إنه قاب كانوا كلا يوديجين transaction كاس إي قاب كان أيوديج مياه ويا لبيت وحنا يسني مركي وحود عيا قاب كان نوعا وحنا بحني العجو أي مركب بحني ديما أو لا ينقو مارتي ينقو قرنا ديما سبحنا قنيان سو يام بيرت فلو نيكس بس خرشات كسوس قايب بحي ويج سبين بحني لبكون بقول يشني لباتن كنا ضرورة إن رنت دي وحنا بحني العقد اللي نقولها إيه محل اللي نقولها كردا استيت كنا utilities وحابي بيلس كم بيه وحابي نقص هنا أفر كن يشم بقولين بحني مثلاً بس درادا أين بحني لو كن لو بقول يشني تباتن أين بحني حتى بقاب كان يأسد كين رايت سيركي ليفت سيركا وين مركور وكلا جرين رايت سيركا وحا مران يبلس كيا ونرسي كوتيجا إن قيمة ليفت سيركا وحا النقطة أسدك ما كيجوشن كانوا كوبيس كرينه هذا محل عي هذا وحا إنه قال لي خراشات كانوا على وجه رنتي يوتيليتيز يمسرانيس إكسبنسز مركل الإسكو جيو وحنا نقدين العقد هالقا كتالا أو محيا سدد حكون يلح بقول يكونتن العقد سوحة كويس العقد كاش كهيدا كون كينو وجرتي ستيت كون يو محي سوهر ستيت بقول يكونتن حقنا حاول نسك إن كابيتال كين محوها مساعد محوها كابيتال كيس وحسكها كون كيسا اللي هذا محيا كون كان سجى أو نرس إيكوتي أيوس يلا لكن اسمها لا مساعد أيام هذا كابيتال مركا العكس صحيح لا بيستون كوني شن بقول إنه وتالي لكن ما أنت محقق قوي محقق قوي سدح كوني محي دح بقول يكونتن العكتي أنت سباسو هردي سدي لما تكون يستد بقول يكونتن transaction كله أي نيجنا transaction كله هذا F أي نيجنا سيان بير سقال بقول يكونتن تكرريترس during the month أي بحي العكت رح ينو بحنينا الحق ورا أيال نقولها محيها سبلايس كينو سوق هذا النمر كي محيها كوني محي كوني يستحق بقول يكونتن كوني يستحق بقول يكونتن كي إنه مارت اللي نقولها waxaan ku jirayna 900 bixinay 400 baa inagu baaqiya xaqana kaashkeeni ayaa yaraanaya way kaash been lacagta ku bixinay iminka oo lacagda inagu rahabay ahayd wali 400 inagu harsan lacagteeni kaashka way yaraatay 7,900 lacagteeni la inagu hadeentana way yaraatay iyaduna 900 kaas uga go'ayaan 400 baa iminka inagu harayba sida awoodeed waxaan eegnaa transaction ku xiga oo maxay transaction G ayaan eegnaa at the end of the month the cost of supplies on hand is 550 so 800 of supplies were used kun يسدد بقول supplies كأي كان transaction supplies خصية waxay ahayd kun iyo 300 konton supplies kina qiimeeyay ugu taagna oo aynu qiimo lacag ah aynu ku fadhiyo hanti aynu haysanay boo waynu isticmaalno 800 kamida wuu yaraanaya muxuu noqonayaa 500 konton buu noqonayaa marka waynu isticmaalnay marka maxaa ninka la yiraahdo Musa Ali capitalkiisa ku dhacay waayo iminka lacagtiisa hantida ahayd ee akoonka ugu jirta ama wixii supplieskiisa qaybtii hantidiisa ee supplies ka khuseysay maxaa ka yaraaday expenses ahaan noqday waxa ka go'aya maxay 800 ayaa expenses noqday saasa isagana akoonkiisa noqonaya supplies expenses akoon ayaa marka soo kordhay haddii eegno transactionka H waxa noqonaya at the end of the month Mose withdraw 2000 in cash from the business for personal lacag kala baxay akoonkiisii ay ku jirtay 800 iyo kontonku $2,000 kala baxay maxaa loo bixinayaa withdrawal baa loo bixinayaa iyadoo ah equity oo yaraanaya oo noqonaya 26,000 iyo konton xaqana cashkeeni ayaa yaraanaya oo maxay noqonayaa 5,900 iyadoo 2,000 ay ka go'ayaan lacagta for personal use weeyaan ownerka ayaa iska isticmaalay sida awoodeed cash pool management kuma fiicna qofku inuu cash pool management inta badan hadal ka xaway inuu lacagta wuxuu isticmaalay barbuski oo isticmaalay way Soomaalida waxa lagu yaqaanaa pool cash management ayaa lagu yaqaanaa wax iskala baxay lacag iskala baxaya meel lagu qoriyo ma jirto laakiin wayna arnamka cashkiisa ayuu iska jaray lacagta capitalkiisa ayaa yaraysay 26,000 iyo konton cashkeena uu yaraaday sida awoodeed wali waxay nagu harsan lacag 4,000 oo maxay supplieskiina harsan wali supplieski waynu qayb kamid ayaynu isticmaalnay sida awoodeed balaynu eegno waxyaaba ay fagaraya ama saameeya owners equity-ga inta badan waxa hoos u dhigay iyo waxa kor u dhiga haddaad maqashay owners equity-ga hantida uu leeyahay ninkan meesha maal gashaday ama ninkan shirkadda iskale ee ganacsiga iskale isagu iskiisa gale laba wax ayaa yareeya laba waxna kor ayay u qaadaan owners investment waxa weeye wax kor u qaado ugu hore wuxuu ganacsiga balaariyo maal gashado markaas ganacsigiisa kor ayuu kacayaan credit
waxaa kor u qaadaya by maxay analysis investment uu balaadhiyay ganacsigiisa branches buu sameeyey ganacsiga balaadhiyay uu yaro balaadhiyay expansion buu sameeyey taas investment uu maalgeliyay lacagta baa kusoo kordhaysa ganacsigiisa kor buu kacaya revenues dakhliga soo gala waxyaabaha saleska uu iibiyo waxaasuna kor buu qaadaya laakiin maxaa yareynaya analysis withdrawals lacagta oo kala baxo isagoo korkiisa waa ka go-aysa expenses kharashaadka uu galo nooc kasta ha ahaadaan ama kii shaqaale ha ahaadaan ama wajiska ha ahaadaan ama rentiska ha ahaadaan waxyaabahaas oo dhan ayaa yareynaya marka net income-kiina halkan markuu yaraado ama loss buu gelaya ama profit bayuu gelaya marka halkaas waxay ka dhexaysa net income-kaasu wixii ama khasaaro noqon ama faa'iido noqonaya haddaynu eegno qaybtan iyada ah waxaan jeclaan lahayn casharka dambe inaan ku qaadano financial reports current financial statements profit summary haddaba qaybtan waxaynu ku qaadanaa casharada dambe waxaan rajeynayaa casharka inaynu qaybta halka caawa inagu joogto casharka ku xiga ayaynu rajeynayna inaynu isugu nimaadno assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu casharka subscribe iyo like iyo share ku qabta casharaantana faalaga bixiya assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala